السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ سلام دمان أقيار تشرفت له صاحبة قالقة رير دبيب رير ددال سجود سيجار سيليهي ملفي عنيهي ملا نبض قبا إلهي إذن كيسا وإذي رجينا ملكستو أدونك جوكتان إيسو دواذا نوسو دواذا خيري فرحة سو دواذا اسكسو نقط كل ونكسن وما مواني إيو مركلة وحن جوغنا دبيب إيو دادان لا قلل كهوساني ما شاء الله وعشر بحنتي تيم بلو دايموند سو دواذا والكم عافي ماذا الله يديكو قدرو عشر والبه مر والبه وحن جعلها هرتا معناها اللي سكولة تعالى إن لا يقانو كبعدنا الله هقربحو أرنكا لو تفحيتي duca dabadeed waxaa loo baahan yahay daryaal isdaba ool ah allaha la garab galo dadka oo dhan aamiin anigu aad waxaan u jeclahay ardaduna u jecel yihiin inta i dhageysatana u jecel yihiin markay muraadku hagaago markay howsha israacdo marka la arko dadaalkii la maray wacnaantiisa soo dhawaada welcome arrin waxaa inoogu daran inta badan jawaabaha culculus ee ka yimaado dhaqaatiirta gabdhuhu jawaabahaas ma ongolo laakiin waxaa la yiri god iyo nin loo wado lama kala qarin karo gabar iyo danaheeda lama kala qarin karo so waxaan idin dhahaa marka hore sii duceysta warsan iyo weersan Soomaaliya waxay tiraahdaa abeesa ku cuntayba afka uma roono abeesa ku cuntayba afka uma roono soo jawaab adag runtii ma fiicno dhagaha uma fiicno laakiin way dhacaysaayo waxa la cunaa daciifa waayaha socday iyo da'da socotay baa daciifa marka meesha meel dhiirigelin waaye meel dhageysi waaye ku soo dhawaada welcome amuurta khayr Allah idinkaga dhigo Allah nooga dhigo dhammaan waxa nafaqada loo cunaayo loo cabaayo loo daba socdo waxay tahay Ilaahay idankiisa in isbedel isdardarkii dhacay ama waayihii socday wixii ka yimid side effectiga da'da iyo nafaqa daradii muddo dheer daquud laga dhiganayay isbedelkii jirka ku keentay in loo qaato nafaqooyinkan ka bacdina tartiib looga soo kabto dhaawicii ka dhacay cunto xumadii da horta socotay ma la soo celin karo laakiin waa lala shaqayn karaa soo haddaa 30 sano tahay jirkaaga 20 jir wuu ekaan karaa 25 jir wuu ekaan karaa laakiin waa jir laga shaqeeyay haddii afka un laga rabo isbedel waa rabaa roobaa lagu waayay meel aadan adiguba dadaal iyo juhdi iyo nafaqo iyo wadwad iyo gacan ku hayn aadan gelin waxa ka soo baxa anigu ma aqaan marka dad badanaa banaanka taagan oo dhahayo ciladaasaa jirtay maxaan sameeyaa allaha caafiyo qof walba xanuunsan allaha caafiyo dadka qaar xanuunkooda waa xanuun murugo leh waa xanuun isbedel ah waa wax ku yimid jirkii maadaama muddo dheer la quudanayay cunto bilaa nafaqa ah anigu kolley sida aanu arko waa saa haddii baaris la sameeyo waa saa dhaqaatiirtu way ogyihiin laakiin qof nool oo haddana danyar ah ama marku dhag cunno dhadhan fiican laakiin bilaa fitamiina quudu arko lagama furfuri karo qofka waxyaabaha dibudhac u keena hadduunan qofku asagu isgaran uu tanasulin waxaa jirta dad qaracansan distressan ooyey dhakhtar la dhigay qalliin mutaystay halis caafimaad guud galay halis caafimaad taran galay amaba ilaa hadda dhex mishaaxayo oon welina ku tala jirin isbedel la imow waa daashay mentally ama physically waa daashay waqtiguna kuu hiili maaye isbedelka raalli ku noqo bilaash looma dhihin qof bukow boqoli kuu taliday ee weli sii wato danahoodii waxay cunaayeen say u fikirayeen siday jadwalkooda oo dhan yahay waayo way ka xoog badiday ama uma maleeyaanbo inay muhiim tahay tanasul samee sometimes you have to give up
hadday milixda ku dhibto, hadday sokorta ku dhibto, hadduu soo jeedka ku dhibo, hadday cuntada bilaa fitamiinka ku dhibto, iyo waxa aa kala kulantayba. haddaase tira waxaan kala kulmaan soo qaadaa, sideen iskaga reebaa la tacaal la-aan, dan ciladusay ku haraysa anigu ma aqaan. marka wax badanaa la cunaaho la cabaaho waddo loo maraaye ama fikrado badanaa la fahmaaye, bal insha allah soo dhawaada welcome. waxaa jirto arrin lagu sameeyey research ama baaris lagu sameeyey, dhaqaatiir ku sameeyeen, scientist ku sameeyeen, lasoo ogaaday halka baaba uu ka taagan yahay. arrimahaas mararka qaarkood wax lacag kaaga bixeeda maaha, waa free, laakiin waa waxyaabaha ay dadka ugu neceb yihiin. dadka haddaad tiraa dawadaanaa kuu roon cun, laga yaaba isla hadda inay gataan. qaarkood dadka qaar dawo iska haystaan dhaqaalo, xanuunkiina wuu dhibay, dawadiina diyaari u yihiin. laakiin waxyaabaha qaarkood suuqa inta la tago lama soo gadi karo, waa price less. dhaqaalaba ma leh, dhaqaalo lama siisto. waa fahan, waa maqal, waa qaado talada ee ku dhaqan, waa duceyso, waa dulqaado. hadda maanta ma jirto dawada dulqaadka. hiriiririg inta hortaada keeno, waatana dawadii dulqaadkee orodoo doonee liq saa dulqaad u samaysid. adduunka kama dhicin, mana ka dhici karto. wax dhici karana maaha, laakiin waa wax kugu duugan. dulqaad waan garanay. farxadda caafimaadka aaday ugu fiican tahay. inaa inoo badiyo waa dhiirigelinta farxadda insha allah. heer aniga naftirkayga waxaan gaaray dadka i dhagaysta, maadaama haddaan farxad iyo qosol qosol iyo hinni iyo ka hadlo, oon dhaho way inoo fiican tahay aan wada qosolno oo aan fafaraxno oo aan baashaalno, ay kala cararayaan. ee aniga iga soo qaadayaan qof aan wax muhiima xataa ka hadlaynin. waa ku khasbanahay marka inaan ayaga qalbiyadooda ilaaliyo, ilaa ayagaan qosli karin oon farxi karin oon ogolayn. relax noqo. 100 qofood hadday i dhagaysato markaan farxad ka hadlo, waxaa laga yaabaa 10 qofood inay tiraahdo maamwaane waa run, anigu waa farxad jeclahay, dadkan igu dhadhowoo dhanaa i dhibay, farxadiima ongolo, ayaguna farxi maayaan, annaku ma ag farxi karo, waa ku khasbanahay inaan sidai ayaga yihiin aan noqdo. biyo kaa badan ay tiri Soomaali, iyo dad kaa badan way ku hafiyaan, way ku qaadaan. biyo ilaahay naguma keenay guuraayo oo xulli ku socdo, guryahay salka ka rujiyaan. dad bilaa farxada haddii ilaahay wax kuugu daro oo lagugu itixaamo, adiga ma farxi kartid. seriously, dad baa isku dalaaqo ayagoon isbarana intay isguursadeen buu qofna farxad badan haystay, qofna uu ahaa madluun. qofkii madluunka ahaa iyo qofkii farxaanka ahaa markii laysku daray waa qaraar iyo macaan. macaankoo yar hadduu qaraarku badnaado, macaanka wuu qaraareeyaa, kaa tanbadinaya. okay? marka in la kala ilaaliyo oo waqti loo kala yeelo maahane, madaxaa laysla gelaya. dadka qaar maxay dhahaan Soomaalida, I remember yaraanteedii, hadduu qof qosqoslo waxaa la dhihi jiray maxaa ku qoslee, ma hiblaaye arax la siiyey baa taa, aamus, afka alla ku gooyey, aamus. sometimes dadka iscanaananayo Soomaalida waa hortaada, farxadda isku quurin. soo caafimaadkana waa same. dad waxaa jira xanuunsan oo afka laga qabto xanuunkooda ama dhaqan ay tahay sheegi karin. maantoo dhan haddaad tiraa waa xanuunsanay, maxay tiri Soomaali, baryo badan iyo bugto badanba waa laysku nacaa, waaba lagugu nacaaba, ma sheegi kartid. dad waxaa jira dhintay oo maanta ahla qabuura, ilaahay ha u naxariistee, oo xanuun siday u qarsanayeen la galbaday, way meelay ku sheegaan male. adduunka hadduu soo fafahmooyaa dadku inaynan ka hadli karin danahooda, wax walbana ay u maleeyaan inay qarash un tahay. sometimes waxyaabaha qaarkood qarash ma aha, laakiin adaa laguu baahan yahay inaad ka hadasho, inaad isku fiirsato, inaad isbaarto, inaad xataa fahansan tahay waxyaabaha la iska baaro, timeka la baaro.
dadku way naxaan markii loo soo diro testiyada qaar ee qurbaha joogo oo la yiraahdo soo xaadir xilligaasaad gaartay ama testigaasaad xaq u leedahay ogow qaq haddaana ibadkaaba lagaa baarin ka war ciladin aad haysato hadhowna cilado culus ay noqoto kuna aad galbato waa fursadaad gebtay soo maaha marka aan ka sheekaysana arrimaha haddii ciladu ayna jirin alxamdulilah allaha naga hayo hadday jirtane dawaa haddii haddana ha loo kaco laakiin inaa dadku dhahaan waxbaa baaba'a nafaqaan rabi lahaa nafaqadina aan la gadaynin ama la doonayn ilaa wax friyo iska yaala guriga malahane wax walba waa in dukaanka laga doono obviously haddana online waa in laga doono dee waxyaabaha qaar dukaanka ma yaalaan haddaad ku aragto waxaa taqaanayne de waa wonderful dukaankaa tegi doonta oo soo qaadan doonta laakiin online waxaa looga dhig wax walba dadkii baa wada biisiya halkaasaad kala socotaa deliverygaaga meesha soo mara waana la hool fududee dukaanka oo ka doontaa iyo online oo ka doontaa ha sahlan wax yaroon xalay dalbaday saq dhexe maraan sii seexanay saakiba waa lay keenay galabtaba way keeneen de dukaankii intaan ka doonaayo dukaankii ma haayaa ma ka dhammaaday inkastoon online ka fiiri kara dukaankii igu dhowo haayo si aan uga soo qaato haddana sometimes intaasaaba waqtiyaba intaan sii socdo intaan soo socdo oo iska waqti qofku alla u saqiray saas ugu saqiran tahay marka isweydiintu ma xumo wax isweydiintu ma xumo laakiin waxaa la rabaa in cimriga sabankan siduu u shaqeeya in lala jaan qaado beenna maaha sidii soomaali tiri khayr allaha siiye see xere lagu xagtaa ilka ku nabad galaan seed adigu caafimaad ku heshaa noloshana adigu sabartaa so kalsoonida waa free waa inaad dhistaa maanta haddaad rabto dawada kalsoonida ma jirto adduunka deeqsi inaad isku noqotaa waa free haddaad adigu isku tahay bukhayl ooda naftaada waxba u ogolayn de waa qisadaada la meerayso hadda maxaa la sameynaa haddaadan waqti ogolayn ood dhakhtar u tegayn haddaadan isku fiifiirsanayn haddaadan wixii kuu nafaqaa doonayn wixii kuu daran aadan joojinayn waxyaabaha chemicalka oo dhan ama cuntada fayga ah ama chemicalka aadan ka leexanayn you have to learn how to say no for yourself maanta oo dhan dad keeg un wado the side effectiga macaanka faraha badanna waad arki one day inkastood intaad yar tahay cunto ciyaal ayna kusoo ridan ki marka lasoo weynaado cunto ciyaal waa kusoo ridataa kolay constipation kugu ridiyo calool istaag haddii wax laga qaban waayna all the way hormoon qalqalay keentaa then waa filayda sooma ruwayna yeelaa wuu yahay cuntada qaldan inay qarka naga tuurayso waa filayni marka anigu waa idi dhiirigeliya maadaama aan idinkala shaqeeyo qaarkiin qaabkaad iskula tacaali laheedeen laakiin dhiirigelin wanaagsan tala qofkii qaataa iskala halayri talada qaata insha allah daryeelkana uma imaanin programka for no reason wuxuu u yimid inuu ku siiyo boost ama siyaado kor inuu kuu soo qaado insha allah marka soo dhawaada welcome waa aniga idin dhahay biri sabtiga waxaa inoo fiiri doonaa saacadda hore oo dhan xilliga aan soo gala qadka ayaamahan habeenaan ku jiraa waa aragteen amaleyna brogramka intuu cusub yahay horta anigu inta badan habeenaan ku jiraa waayo dadka lala shaqeeya qaarada iga fogfogay joogaan marka reer afrikana de waa joojiye waaye habeenaan la shaqeeyo marka waxaan idin dhahay waxaan ka sheekaysan doonaa biidnillah riximka iyo waxqabadkiisaan ka sheekaysan doonaa waxqabadka riximka horta waa xibin maskiina waa caawi aan ku caawiye ila shaqeey aan kula shaqeeye shaqada ay noo qabato riximkana waad ogtihiin qofku ilaahay ku siinaayo waa xibintii taranka waa tii ubadka laga helaayay hadduu de ilaahay nooga soo sarrifo la shaqaynteeda marka nabadu waa ka mid insha allah farxaddu waa ka mid ducadu way u fiican tahay sadaqa xataa waa loo bixiyaa nafaqada waa loogu roonaadaa erayga iyo buuqa iyo muranka iyo isdardarka iyo xanaaqa iyo dooda iyo yuuska uma fiicna xibintaan in fact gabadha dhan baaba la qariyaaba oo laga qariyaa il bini aadan il jinni il insi allah naga xijaabay xilliga tarankeedu uu jiro laakiin adduunyo lagama maarmo inaan ummad dhexgalno ma waagii hore mase hadda inkastoo waagii hore aan waxba ka aqoonin oo waayaha dhaxa aan ahay laakiin marba marka ka dambeyso waa laga yaabaa inaad adiguna maqashaan dadba dadkii kale kasii horreeyey gabar xilliga taranka ku jirto waa la dhaqaalaystaa taas waayo soomaali waxay u tiri jir haween waa gacan ku hayn
soo gacanta marka lagugu haayo dabcan qof loo rooroon yahay tahay sax nafaqaynteeda soo dadka hore maxay samayn jireen qofku hadduu xanuunsado neef loo qalayaa quraan la saariyayaa magaalada laga wadiyaa laakiin si hawo bedel camala maaragtay nafaqooyin wixii loogu roonaan karo ee ciduna awoodu leedahay gabadhaas aadaa gacanta loogu haya ducada iyo ammaanta iyana way isdaba socotaa wixii loo heli karo dhanna korkeeda la saari jiray dahab iyo wax walba oo khayr leh marka waayahan waxaa soo baxday inay gabdhihii cunaan cabaan labistaan noolaadaan un gabar gaar loo ogaadaa waa yar tahay mid iyada gacanta isku hayso isku roona aniguma sheegin ilaahay u gargaaray laakiin gabar gaar loogu roonroonanayo maya ma jirto way yarta haddii jirtana marka fadlan ogaada waxyaabaha hadda lagu kala masayraba waaye gabar loo roon yahay waa la qariyaa qayrkoo dhan waaba la qarsadaa laakiin meeshii wanaagaaga uu yaallo ama adigu isku roonroono ama ummaddu ilaahay kaaga soo qaado waalidkaaga sawjkaaga dad xaas tahay adigu ciddi kolley gabar yar oo dhalinyara ama gabar weli dhaqmaada koolkoolinayso kibirkaaga ka badinin kibirkaaga ka badideen dhuruqdaasaa la gelaya inta badan gabdhaha waa la dhibaa hadal lagu dhibayaa maaragtay hadal lagu durayaa loo faanayaa lagu dhaga hadlayaa adigu ungumaadka waa iska badanya inkastoona hadal qayaxano iyooba kaa xanaajiyo oonan ahayn dee gabadhii u fiirsataa way fahmi kartaa marka maxaa la sameynaa dhagahaaga dadbo indhahaaga dadbo la jooga dadka qaar yaree calaaqaadka aad la leedahay yaree adigu un gaar iyo gooni iska noqo jeclow brivacygaaga cidla ceebtaada ma sheegto nafaqayntaada quraansaarkaaga isla tacaalkaaga tartiibtaada u wado qaybtan hoose haddaad ka qaraabatidna wixii nafaqo kusoo galo dhac isku qabooji marka jir haween waa gacan ku ahaan qofkii yiri been ma sheegine gabdhaha gacanta isku hay waad aragteen khayraadka aad soo riboodaysaan oo wanaaga oo nafaqadaada ilaahay kaaga soo duxiyay jirkaaga ay tahay saas ku soco weliga allaha gadaal ha u noqonin insha allah khayr dhamaantiin waa islaama maanta waa maalintii dhiirigelinta soo dhawaada insha allah amiin sabtiga axad adika iskale soo dhawaada maalmaha dhiirigelinta aan iska warqabno laga yaabe xilliga aan ku adeego inaa wax badan gaar iyo goonina aad u faa'iidid marka insha allah khayr haddii uu kolley videogu soo gaaro ood ku nasato xisaabtan waxyaabaha qaar lacag laguma helo hadday dantu kaaga xiran tahay so hoo kaniinkan cun aad caraburburtida ma jirto hoo kaniinkan cun aad xasil noqotida ma jirto marka insha allah khayr wixii dawo loo helana dee adduunka ilaahay nooga soo sahlo waa loo helay oo waatan lala tacaalayo wixii aanan dawo loo helinna dawaa understandingka fahan aqbal ilaahayna nuurka kuu saaro kabacdina waa ka isjir soo gabar weli tarmayso xilli dambe iyo saq dhex inay socoto maahana la dhahay maqribka waa inay daaqadaha xirataa insha allah mar kasta waa inay ducaysataa iljinni ili insi ilaahay ka magan gashaa allaha u kasta isku roon waa inay noqoto wax allaala wixii hakad keeno sida hormoonkeedii iyo tarankeedii waxaas hadday hakad keenaan waa inay fikirtaa tiraahda talow maxaa qaldan ma nafaqada ma waxaan cunay ma waxaan cabaa ma waxaanan aqoonin oo iga maqan oo raadin iga rabaa ma waxaan aqaano oo howlqabad iga rabaa allaha nagu badbaadsadee ma sadaqadaa iga yar ma wanaaga aan ku fikiraa yar waayo haddaad negative tahay maxaa la yiri negativeka meeshii negative waxba sooma galaan sax so xasadka la yiraahdo ma aflaxo so moo aan negative ta waa moo xasad tahay naftu ma ogola xasadaa tahay in la dhaho laakiin negativeka waxba ma helo xataa dadka negativeka hore uma baantaan so moo aad duco badan tahay ood positive tahay haddii xataa cudur ku haleelo kalow hargab ku yahay within few days aad uga boodaysaa lafahaaga ilaaha iska badbaadsado laakiin ogow adduun orod laguma gaaro qunyar socodkaas noqo waxaad aragtaba dhab fikradii fiican qaado ciddii fiican ku xiro nafaqadii fiican cun isku roon maxay tiri soomaali maasha allah ma roqato marka ilaahayna ma rujiyee get ready isla tacaal sahlan oo saqrin masajada waa maalintan ka jawaabaa intiina youtube ka joogto nambarada hortiina yaala ku reebta
cod ahaan iga raali ahaada haddaadan wadamadan la shaqeeya aadan ahaynina soo dhawaada welcome kheyr badan iyo farxada ilaahay inoo wada weydiiy dhammaan reer dabiibo adinkuna waa kaasa nafaqadiina ku baashaala cuna caba caafimaad allah idinkugu daro soo dhawaada dhammaantiin welcome